بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ولا ليال ساعة وحا إسوكي أن كأركي ويب سايتك نمن يري وحن كو هذا الله أفكا لبية طوبان كدب حبر عفان nimankaasoo niman aanoo da'daaya aan weligay arkay ama aan maqalay aanay ahayn sheeganayeen beeshii waxay ila noqotay wax ama kaaga oo laga naxo oo laga yaayaqsoodo oo ninka bani aadamka ee shucuur bani aadamnimo lihi u ka yalaalugoodu markii aan dadkii waraystay een telefoon diray ee warsadeedu war nimankan magaca sheeganaya ee aan la garanayn maxay ahaayeen iyayse ka socdaan waxa la ii sheegay kii yaraa ee shalayta soo ooyay waa la caydhsanayaa oo boos baa la iga qaadayaa lahaa ayaa wata oo doonaya inuu ku burburiyo odayaasha sharaftoodana ku baabi'iyo u sheegaya inanka yar adeer habar cafaan nin baa u taliya samaroonna niman baa u taliyo intiiba wixii ay gaadheen iyo go'aankii ay gaadheen shalaytay shaaca ka qaadeen waana loo dhan yahay adduunkana way ku faaftay meel walbana waanu gaadhsiinay adigu waxaanaad la boodboodaysaana meel ku gaadhi maysida nin bay kaa dhisi shakhsiya ma waxaad garan weydeen halka uu ka hadlay suldaan maxamed suldaan nuur dheere suldaan ibraahim suldaan dawal iyo suldaan abshir halkay ka hadleen ninka kale ee ka hadli karaa waa halkee ee loo baahan yahay ma jiro samaroon nimankaasaa u taliya samaroon nimankaasuu isku ogyahay samaroon nimankaasuu isku hallaynayaa halkayna mariyaan baanu maraynaa ugu dambayntii fariinta aan halkan ka dirayaa waxay tahay anigoo ah cali faarax cabdilaahi oo ka mida odayaasha beesha samaroon beesha habar cafaan beesha muusafiin aan raali gelinayaa dhammaan beelaha gadabuursi mashaayikhdooda salaadiintooda mutacalimiintooda waxgaradkooda haweenkooda dhallinyaradooda waxaanan ka raali gelinayaa hadalka yarkaasi iyo dembiga yarkaasi wasiirka meesha ka ihi ee dabadhilifkiihi uu ka galay ummadda samaroon waxaanan idin leeyahay ilaahay baa ka jasaa'i marin muusena mid baan leeyahay muusow weligaaba warwareeg waad iman bartii waananu ku siin doonaa jawaabtaada والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.